qofna ma fahmi karo sadarrada buuggan ilaa kuwa mar dareemay murugada iyo xanuunka kala tagga. Haddii aadan ka mid ahayn dadkaas, muuqaalkan iska dami, dibna uga laabo fidyowga. Magaalada jacaylka ma jirto waxaan ka naabahay noloshayda hordhacyada dhaadheer ee buugaagta iyo dadka dhibta leh ee iga dhex gala wakhtiga aan wax akhrisanayo. Qofna ma awoodo inuu kiciyo naxariistayda sida qorayaasha sawirkoodu saarta daboolka buugaagtooda. Laakiin aniga marka aan dhammeeyo buuggan, waxaan iska qaadi doonaa sawir ama huwaad oo aan saari doonaa daboolka buugga sida laaluush yar oo aan ugu talagalay gabadhaas maqan misena aan jeclayn akhriska. Waan ogahay inaysan rumaysan doonin indhaheedu haddii ay sikadiisa ugu aragto jaldiga ama daboolka buugga sawirkayga. Waan ogahay inay muddo yar ku jahwareeri doonto ilaa inta xaqiijinayso waxay aragto. Shaki badan kadib waxay hubin doontaa in sawirka ku yaalla buuggu uu yahay ninkii ay mar jeclayd. Kadib ay ka tagtay iyada oo aaminsan inuusan weligiis la wadaagin jacayl, iyada oo ay dadka ka baqanaysay. Mar walba waxay moodaa in la eegayo, lana og yahay waxa maskaxdeeda ka socdaa. Waxaan si kalsooni leh u ogahay inay si qarsoodi ah uga qaadan doonto buuggan khaanadda maktabadda sida qof wax xaday. Marka buugga gacanteedu galana, way baaladaymo doontaa midigteeda iyo bidixdeeduna si ay hubiso in waddooyinka maran yihiin. Kadib si tartiib ah ayay u furi doontaa oo u baadhi doontaa bogaggiisa si taxaddar leh, sida tuugta ku fadhaya waxa uu xaday meel dadweyne joogaan. Marka indhaheedu ku dhacaan bogga hadiyadda ah, waxay ku dhawaaqi doontaa qaylo lama filaan ah oo dadka soo wada jeedin doonaan, sidii iyada oo aan rumaysan in nacaskii mar kasta iska dhaantareeyey, misna uu u muuqday qof wax dan ah ka lahayd. Uu yahay ninka qoray buuggan weliba iyada darteed, si uu ugu sheego inuu ka xun yahay wixii dhacay iyo inuu weli jecel yahay. Haa, waan ku jeclaa sidaan weligay wax kale u jeclaan, laakiin waxaan wax ka bartay nolosha markii ay igu dhufatay dhirbaaxo si lama filaan ah. Waxaan bartay inaan qariyo dareenkayga oo aanan ina tusin sidii qof dembi galay oo raadkiisa qarinaya. Laakiin hadda kadib, markii dhaqanka iyo xeerka ay igu diideen inaad ila haato, oo waxa kaliya ee aan kugula kulmi karo ay tahay riyada, ma rumaysan karo inay jirto waddo kale oo aan kugu sheegi karo waxa qalbigay ka buuxa, marka laga reebo habkan adag oo khatar badan oo laga soo maray. Saacadda wareegta ee miiskayga dusha saaran waxay tilmaamaysaa 2:15 habeennimo ee kala tagga. Aniguna waxaan fadhiyaa balakoonka gurigeenna, kursigii qadiimiga ah ee alwaaxa ahaa, kaasoo aan had iyo jeer ku wada sheekaysan jirnay, aniga oo dusha ku dul fadhiya. Qalin ayaa dhegteeda dul gashan, horteedana waxa yaalla xashiyo cadcad oo fidsan. Mar kasta oo aan ka fikiro, dabayshu way kacdaa oo waxay si xad dhaaf ah u salaantaa geesaha waraaqaha, sida xanuunka xiisaha aan ku qabo oo kale. Waxaan xidhayaa indhahayga, gacmahayga qabow dartii ayaan isku dhex gelinayaa, madaxaygana kor ayaan u qaadayaa anigoo eegaya cirka. Waxaan ku celinayaa hees si deggan oo la mid ah iftiinka dayaxa qalalan ee degganaanta ku muuqato, kaasoo iftiiminaya hareeraha. Heeskii wacanay ayaamahan wakhtigii aan joogniyo oo agii caddaadaba naftayda degto welweligu abuurtee anooda jirkeenniyo jecelo heshigeena. Markii aan dhammeeyey heestaas, indhahayga ayaan u furay, madaxaygana hoos ayaan u furuuriyey, gacmahaygii isku xidhnaa ayaan kala furay. Shamac ayaan shiday si ay xarafyadu si fiican uga muuqdaan warqadaha. Qalin rasaas oo dul saaran dhegtayda ayaan soo saaray, kuna bilaabay inaan wax ku qoro. Waxaan dareemay wax iga taagan dhabarkayga. Markaan ka fiiriyey isaga oo ka muuqda indhahayga oo aanan dhaqaajin madaxayga, waxaan arkay sawirkaaga oo mar kale u yimid sidii caadada ahayd, si uu u fiiriyo waxaan ku qori doono. Si murugo leh ayaan u dhoola caddeeyey oo iska dhigay inaanan ogeyn waxa uu samaynayo.
maxaa yeelay waxaan ka baqayaa in haddii aan u jeedsado uu ka dhunto sida caadadeeda ahayd. Gacantayda si tartiib ah ayaan uga soo dhowaynayaa warqadaha anigoo u cabsanaya sida inaan yara oo markiisii ugu horreysay gacanta u fidiyey abeeso oo kale. Waxaan ku fikirayay wax yar go'aan qaadasho kadib waxaan ku bilaabay magaalada jacaylka ee ka caagan waxgaradka. Markaas ayaan bilaabay inaan qoro sidee tahay, sidee bay yihiin maalmihii aniga la'aantay, ma ka adkaatay inaad ka gudubto maadada adag, ma way kuu egtaa sawirkayga si qarsoodi ah ka hor intaadan seexan, ma joojisay inaad subax walba magacaaga ugu horreeya ku qorto muraayadda dahabka ah ee derbiga kahor intaadan u bixin jaamacadda. Ma ogtahay in noloshu noqotay mid caajis ah aniga la'aanta, sida hawl shaqo oo aan dhammaystirnayn. Ma ogtahay inaan ku xiisay. Waxaan ogaaday intii aan ka maqnaa in kala taggu mararka qaar uu noqdo mid faa'iido leh, waayo wuxuu naga dhigaa inaan dareemno qiimaha dadka aan horay uga dhindhatirnay, kuwo kalena ku kala tagnay ka hor intaadan fahmin inaan noolaan karin iyaga la'aantood. Haddii aad ii soo laabato, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku jeclaado si ka wanaagsan. Waxaan ahaa mid aan ka fiirsan ka hor inta aadan kula kulmin, iyo sida ii kale ee dhulka Carabeed, isna garaacayo qalbiyo oo jabiyo nafsiyo iyo ruux, isna si fiican u yaqaana beenta haweenkan loo sheego, ilaa aan gaadhay heer anigu rumaystay beenteeda marar badan. Ma aanan ahayn mid daacad ah ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye, ma aanan ahayn mid run sheega ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye, ma aanan ahayn bini aadam ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye. Ha yaabin, waayo inta badan ragga bari waxay sidan u yihiin. Had iyo jeer dagaal ayaanu la galnaa dumarka, sida ay u muuqato inay jirto nacayb hore oo u dhexeeya iyaga iyo dumarka, ama utun soo jireen ah oo keentay inaanay la heshiin. Taasi waa sababta keliya aad ugu aragto gabdhaha ugu baahan. Iyadu waa gabadh jecel nin bariga ah, waayo waxay dhaqan ka dhigteen tegitaanka lama filaanka ah, waxayna ka taagaan iyagoo aan la iska ogeyn, waxayna soo noqdaan marka ay nolosha albaabadeeda xidhanto. Mar walba waxay u arkaan inay xaq leeyihiin, adduunkuna uu jiro iyaga keligood, oo aanu dhulkoodu toosnayn ama hagaagayn iyaga la'aantood. Galabta, hooyadii waxay igu ducaysay in Ilaahay iga dhowro xumaan oo dhan, ina hibeeyo wax kasta oo san ducadaasi way igu dhacday oo adigaan ku helay. Markii indhahaygu ay la kulmeen indhahaaga, ayaan gartay inaanan bad ku jiro, gartay inaanay jirin meel lagaga baxsado duufaanta jacayl ee igu soo waajahan. Way i kala kaxaysay oo dib ayay u bamurtay. Adiga waxaad leedahay indho dabin oo kale. Qof kasta oo ku fikirayay uu ku dhex dhacay dabinkaas. Kaalay aan sir yar kuu sheego, aamin yar ayaa ka soo wareegtay kulankeenii, balse dhammaan dadkii ka horreeyey waan ka saaray qalbigayga. Keligaa adiga ayaa dhex tegay, iyadoo aanay jirin cid kula tartamaysaa. Waxaad gebi ahaanba tirtirtay xasuusteeda dareen, taasoo ay ka buuxeen dumar aan islahaa marnaba ma iloobi doontid. Adigu waxaad igu qasabtay inaan kugu qariyo adiga keliga, aniga oo ahaa nin aanay hal gabar ku filnayn raginimadiisa, waayo gabadha aan la heli karin ee buuxin doonta booskaaga. Waxaad kor u qaaday rajadeeda ganacsanaanta ilaa aan kuwada aaminay oo aan cid kale raaligeliso ay noqotay arrin adag, sida ay u adag tahay inaad hesho wiil beri ka yimid oo guursaday. Markaad gabar qurux badan weydiiso ma xidhiidh baad leedahay, inuu ugu halceliyo haa, waxaa jira hal qof oo keliya, markaan la kulannana isaga ayaan garanaa inuu Alleh raalli inaga yahay. Maxaa yeelay waxaan u jeclaa si dhab ah, waxaan go'aansaday inaanan ku ciyaarin iyada, waxaan garaacay albaabka gurigooda, mana aanan ka imaanin daaqadda.
jacaylka dhabta ah wuxuu ka yimaadaa albaabada guryaha, mana ka yimaado daaqadaha. hase ahaatee, jacaylkan oo aan ku waarin sheekooyin hore mooye, waxaa khasab ku noqonatay inay u halgamaan kala tegeenna. waxay u qabteen jacaylkeennii si dhaqso ah, waxayna u kaxeeyeen garoon wax lagu dilo. waxay u dhiseen tiir si cadownimo leh, waxay u fushiyeen kursi wareegaya, waxay ku duubeen qoortiisa xarig adag, markaasay ka laadeen kursigii uu ku taagnaa, iyadoo aan wax fursada siin si u jeediyo rabitaankiisa ugu dambeeyey. waa uu dhacay jacaylkii. ka hor intii aanay cagihiisa dhulka gaadhin, xariggii ayaa qoortiisa ku sii jiismay ilaa ay neeftu qabatay. waxay sugayeen wax yar. markii ay u malaynayeen inuu dhintay, ayay ka tegeen isagoo hawada ka laalaala. aniga iyo iyada ayaan ku soo harnay fagaarihii. waxaynu eegnay jacaylkeennii annagoo argagaxsan sidii ilmo iyo gabadh yar oo arkayay dhimashada waalidkooda oo dhowaan lagu xukumay dil, welibana si dulmi ah. laakiin si lama filaan ah ayuu jacaylkii indhihiisa u furmay oo uu noo soo eegay, isagoo dhoola caddaynaya misana noo tilmaamaya inaanan hadlin. waxa uu soo fidiyey gacanta, isagoo furay xariggii qoortiisa kaga duubnaa. mar kale ayuuna soo eegay, waxa uuna noo soo diray dhunkasho hawada ah. markaasuu noo iljabiyey oo uu duulay cirka, isagoo ku hagaaninaya waad idiin soo noqon doonaa. isku mar ayaanu ku nariyey innagoo qaylina goorma, laakiin wuu sii duulay oo kama uusan jawaabin. hoogadii miyay ogaadeen inay jacaylku uusan u dhiman karin daldalaad, oo uusan u dhiman xabad. hoogadu may ogaadaan in jacaylku yahay shayga keliya aynaan garanayn sida uu ku bilaabmo, iyo inuu yahay shayga keliya ee marka uu bilaabmo aan garanaynin dhammaadkiisa. intii dhibtaasi oo dhan la mari lahaa, waxay ahayd inay jacaylkeenna ama geliyaan oo ay faraha ka qaadaan miinaakhin hadalkii nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaadee. ma arkin wax ka fiican guurka dadka isjecel. kala tegeennii kadib aad ayaan u shalleeyey gacaliso, maxaa yeelay waxaa jiray jacayl weyn oo qalbigayga ku jiray oo aanan ku tusin adiga. aad baan u shalleeyey maxaa yeelay waxaa jiray hadal badan oo ku hurday dibnahayga oo aanan kuu sheegin. kala tegeennii kadib waxaan ka shalleeyey mar kasta oon ka xanaajin jiray iyo mar kasta oo aan kaa gaabiyey. haddii aan ogaan lahaa kala tegan ay maalmuhu inoo qarinayeen, malaha waxaan ahaan lahaa mid caqli badan, mid xanaaq yar, mid xakamayn badan, mid xigmad badan, mid faham badan iyo mid jacayl badanba. laakiin waxay u muuqtaa inay weligay casharkan baran doonin. waxaan sii ahaan doonaa sida dadka kale ee aanan aqoonin qiimaha waxay haystaan ilaa ay ku lumaan gacmahooda. ma xasuusto intii uu kala tegeennu socday. waxay yidhaahdeen sannad, laakiin qalbigaygu wuxuu ku adkaystay in 100 sano ahayd. maxaan sameeyey adiga la'aanta? maalin kasta si gaabis ah ayaan u socdaa, sidii diin caajis ah oo markii uu daalay go'aansaday inuu u socdo dhinaca kale ee dunida. waan ka xumahay inaan kaa tegay oo aan ku dayacay xilli ay waajib igu ahayd inaan adiga dartaa u noolaado, u dagaalamo. waan ka xumahay, waan ka xumahay, waan ka xumahay. beriga ayaa i baray inaan fulay ku noqdo jacaylkaaga, deeqsi ku ahaa dhaawacyadaada, bakhiilna ku ahaa dareemahaaga. markii aan kala fogaanay, mid ka mid a saxaabteedii ayaa yidhi ha murugoonin, maxaa yeelay arrinka muuminku had iyo jeer waa khayr. laakiin waxaan ku wariyey ii sheeg xaggee ayuu khayrku kaga jiraa maqnaanshaha. ilaa iyo inta codkaygu aanu kugu imanin oo aanu ku soo gaadhin, waan sii wada doonaa qoraalka. waxaan buug kasta ku qori doonaa sir aan qof adiga ahayni ogaanin. maalin maalmaha ka mid ah waxaan noqon doonaa caan. ogowna maaha jacaylka aan caannimada u qabo, balse waa si ay kuu suuro gasho inaad wararkayga ka hesho telefishinada. haddii aan awoodi waayo inaan caan noqdo, waxaan ku kici doonaa dembi weyn. maaha argoosi bulshada ka dhan ah, laakiin si ay kuu suuro gasho inaad wararkayga ka hegto jaraa'idyadeeda iyo wargeysyadeeda. maxay ugu yaraan wakhtiga kugu filan kugu siin waayeen si aad ii macsalaamaysid? waxaad ku tagtay si lama filaan ah,
aniga oo aynaan ka heshiin kala tagan miyaan isdhiibaa mise beri waan kulannaa miyaan joogaa meeshaydii mise waxaan fidiyaa shiraacayga oo waxaan ka taagaa dekedaha sugitaanka aad baan uga cabsanayaa inaan iska tago haddii aad beri ku soo laabato meeshan oo aanad iga helin raad iyo ciwaan midna kadib markaad isku daydo inaad raadkayga raacdo waxaad arki doontaa tallaabadeeda oo tirtirantay markaad dadka ka waraysato xagga aan ku dambeeyana waxay kugu celin doonaan weydii ciidda gacaliso waxaan ku sigtaa inaan waasho markaan ka fikiro ninkaaga mustaqbalka oo fadhiya isla kursiga aan anigu ku fadhiyo ee meherada aan ku kulmi jirnay dharkiisa cusub ee la kaawadeeyey ama la feereeyey iyo cimaamadiisa uu ka amaahday walaalkiis iyo cadarkiisa uu uraya sida kabo cusub oo kale iyo saacaddiisii dahabiga ah ee aan muujinaynin wakhtiga saxda ah ma garan doono in qalbigaaga anigu leeyahay iyo inaad aniga daacadii tahay sidee ayuu kuu arki doonaa marka ugu horreysa ee uu ku arko ma awoodi doonaa inuu wejigayga murugada leh ka arko indhahaaga iyo ilmada ku taalla dhabannadaada iyo magacayga oo saddexan ee ku qoran debnahaaga sidee ayay noqon doonaan haddii aan guursado 10 sano kadib gabar ay dadku ku sheegaan inay tahay gabadh qurux badan sidee ayaanan adiga ahaan iyada u arki doonaa sidee ayaanan ugu yeedhi doonaa magacaaga sidee ayaanu la istaagi karaa iyada agteeda anigoo hortaagan muraayadana aan iska arko aniga oo keligay taagan iyo adiga oo aan agteeda taagnayn wuxuu ii daba joogaa udgoonkaagan meel kasta aan tago udugaagu waxa uu soo gelayaa xubnahayga waxaana uu igu soo celinayaa xaggaaga aniga oo aan rabin si laga awoodo roonaado sida maxbuus dagaal maxaa kaaga dhex arkaa wax walba siday wax walba sikadiisa u noqdaan adiga 2 maalmood ka hor waxaan fadhiistay badda horteeda anigoo aamusan ayaan eegayay shaaca quruxda dahabka oo dul saaran biyaha sikadiisa ayaan kaga dhex arkay adiga oo boodboodaya hirka hir sidii jilaaga badda awowgii kalluumaystaha ah igaga sheekayn jiray mar kadib waxaan ku arkay adiga oo fadhiya mid ka mid a dhagaxaanta badda timahaaga dhaadheer ee madowga ahna fidsan yihiin misena aniga ay soo eegaya eegmadaadii xiisaaga gacalka lahaa in yar kadib waan ku waayey muuqaaguna kama uusan muuqan dhagaxa mana aadan ku noqon kaboodidii hirarka maxaad marar iga muuqada taa marmarna iga qarsoontaa ilaahayow xasuustu way i taabatay adigaa u naxariis badane ee naxariiso aynu qiyaasno maxaa dhacaya haddii aan 20 sano kadib si lama filaan ah meel ugu kulanno aniga oo la socda qoyskayga ballaadhan ee ahayd inaad adigu sabab u noqoto adiguna uu ku ag taagan yahay nin aanu weli qalbigaagu rabin misena aan ugu yeedho magacaaga maxaan samayn doonaa markaan fiiriyo carruurtaada kuwaasoo laga yaabo inaanan ahayn ilmahaygii iyo kuwaadii jeclayd inaan dhalno aniguna u malaynayo inaan aniga cid aanan ahayn u ekaan doonaan maxaa ku dhici doonaa markaad aragto ilmihii aan dhalay oo kuu soo gurguranaya koo fulaya cagahaaga madaxiisana kor u qaadaya indhahaagana eegaya marba marka dambeysa markasta ayuu soo jeedsadanaa oo indhahaygu mar kale fiiriyaan kadib dib ayuu kuu eegaa adigoo u qoslayaa sidaas isaga oo helay sirteennii weyn oo wuxuu kugu yidhaahdaa cod u eeg miyaw dabisada gaajaysan hooyo maxaa dhacaya haddii uu qadarku inagu qoslo kadibna uu inoo ogolaado 2 daqiiqo inaan ku qaadano wiishka dhismayaasha dhaadheer maxaad ii odhan doontaa sidee ayaad ii eegi doontaa ma kuu sheekayn doonaa mise ma awoodi doono maxaa yeelay waxaad noqotay nin kala gabadhiisa ma jiro wax ka xanuun badan ragga marka laga qaato gabadhiisa oo aan doonaynin cid kale ma ii sheegi doontaa inaad weli iga fikirayso aniga ma ka xumaan doontaa dharkayga ma ka heli doontaa qaabka weli timaha aan u jarto ma igu dheehan doontaa walwalkayga iyo sawirkayga wejigayga ku saaran si naxariis ah ma u eegi doontaa ciradayda soo dhacday oo timahayga ka soo goday ma iga dheehan doontaa
magacaaga oo afaran ee igu qoran fogaanshaha qoraalaha ku wareegsan indhahayga. Ma idhan doontaa weli waan ku jecelahay mise waad i dhaleecayn doontaa sababtoo ah waxaad igu aragtay anigoo la jooga haweeney ay waraaqaha dowladduna ku sheegayaan inay tahay xaaskayga. waxaa lama huraan ah inaad sii diyaarisid hadalkaaga aad i odhan lahayd marka uu qadarku inoo diyaariyo kulan labaad 20 sano kadib, welibana isla wiishka dhismayaasha dhaadheer. kulanka waa inaad diyaar u noqotaa sababtoo ah jacaylkaygii qadarku wuxuu jecel yahay sahradda jacaylka. haddii aad halkan soo gaadhay, qaybtani waa qaybtii koowaad. qaybaha kalena insha allah waan ku soo hejisiin doonaa. waxaana kaa habsaya inaad channelkan Xijira Jacaylka aad subscribe saarto, like-na aad saarto, si aad u aragtaa inaad boogan sii wadno. qaybta commentigana waa muhiim. commenti iyo like waa muhiim, isu dhiirigelin badan aan ugu helno. mahadsanidin, waana soo badin doonaa insha allah. fariin kooban oo ku socota xertii sababta u ahaa kala taggeena. idinku waxaad u maleynaysaan in dabka jacaylku uu damay halkaad keliya kor ugu sii shideen xaabo kale. haddaba jacaylku waa dabka marka qofku isku dayo inuu damiyo wuxuu noqdaa mid sii kululaanaya oo shidma. kaale aynu istusno ama aynu mala awaalno 40 sano kadib, aniga markaan ku dhowaado inaan noqdo 60 jir, misna aan ku sugnahay sariir ahayd inay ahaato sariirtaada, oo aan madaxayga ku ururinayo urtii da'da, misena aan eegayo derbiga oo uu ku dhajisan yahay sawirka aroos murugo leh, kaasoo ah sawirka wiil dhalinyaraha oo aad aniga ii eg, una taagan sidii inuu aas joogo oo kale, oo gacantiisa bidix ku haya gal ubaxa jaban, wejigiisana ka muujinaya dhoola caddayn qabow, misena gacantiisa midig ku haya faraha haweeney aan adiga ahayn. markaan eego waan ku xanuunsadaa eegidda sawirkaas, waxaana isku qabtaa indhahayga, waxaan qaataa neef qoto dheer, kadibna gacantayda ayaan kor u qaadaa si aan u tirtiro ilmada ku soo dhacaysa wejigayga qalalan. waxaan u kacay salaada istisqaa, salaadii tala saarashada, iyadoo ayna dhicin dhoola caddayntaadii weli aanad sii tegin. dhinaca midig ayaan eegay, waxaan ku arkaa adiga oo caloosha u jiifa, oo wejigaaga ku taageeray gacmahaaga, iguna eegaya indhahaaga qalqaalnimadu ka muuqato, misena dhaqaajinaya dibnahaaga oo aan cod lahayn, iguna leh waan ku jeclahay. markaan isku dayo inaan farahaaga qabtana waad baaba'daa oo waa ku waayaa. ragga xiriirada badan leh waa ragga maalin uun waayay haweeney ay jeclaayeen, gabadh kasta oo ay la kulmeen ka raadinaya naxariistii ku dhex jirtay jacaylkiisa. waxaana adag in gabadh kale uu raalli ka noqdo wax kasta oo dhacba. sidaas darteed waxaa doqon ah gabadha jacaylka raadinaysa ninka waayay gabadhii uu jeclaa. mararka qaarkood ninka xiriirka badan lahi waa ninaan helin haweeneydii uu raadinayay. marka uu helo gabadha, isaga si kiskiis ah u joojin doona raadinta iyo dabagelidda dumarka, welibana isagoo aan cidna ka codsanin. marka uu nin la kulmo haweeneydii ku habboonayd, wuxuu la wadaagi doonaa noloshiisa oo dhan iyada, waxna ma hor istaagi doonaan, mana khiyaami doono abidkiis. waxa uuna jeclaan doonaa sidii ay tahay gabadhii ugu dambeysay adduunka ku noolayd, sida inay tahay rajada keliya ee jiritaanka aadamaha si uu sii socdo. sidaa darteed, gabadha ogaata khiyaanada ninka ay la jaalka tahay waa inay isla markiiba ka socdaashaa, waayo waa inay ogaataa in iyadu aysan ahayn gabadha uu ninku raadinayo.
khiyaanadu ma aha oo keliya galmo, waxaa jira khiyaamooyin aynu maalin kasta samayno innagoo aynan dareemin. Waxaa jira khaladaad aad u fudud laakiin aqoon darro ina haysato darteed aynu u fahanno inay tahay khiyaano. Lama soo helayo fikta liis noocyada khiyaanada ah, laakiin markaad dareento in wax la mid ah mindi si lama filaan ah u dhex gashay wadnahaaga, ogowna in uu qof uu ku khiyaamayo. Adduunka kama jirto khiyaano dhammaystiran. Khiyaanadu waxay leedahay cod ama dhawaaq qof kasta oo ugu dambeyntii maqlo, laakiin waxay u baahan tahay waqti yar si ay u gaadho dhagahaada. Haddii aan siyaasi ahaan lahaa, waxaan saari lahaa go'aan lagu soo qabanayo qof kasta oo lagu helo khiyaamo ama lagu caddeeyo, waayo qofka awooda inuu khiyaameeyo jacaylkiisa waa qof awooda inuu khiyaamayo waddankiisa. Mar kasta waxaa jira gabadh maqan oo ka dambeysa burbur kasta oo nin la kulmo. Sidoo kale mar walba waxaa jira nin maqan oo ka dambeeya burbur kasta oo gabadhi la kulanto. Ma jiro qof xun oo iska maqan ama tegay bilaa sabab. Dabcan, sida aanay u jirin qiiq iyo uuro meel aanu dab jirin, ma jiro qof xun. Ma jiro qof xun iyadoo aanay jirin macsalaamo jabisay doonistii qalbiga maalintaas. Kaale aan malaawaalno anigoo 50 sano kadib, markaan ku dhowaado 70 jir, aniga oo fadhiya keligay gurigayga weyn, farahaygana soo fidinaya kuwaas oo u muuqda kuwo muddo dheer ku dhex jiray koob biyo ah, kuwaasoo aan ku sido buugga sawirada arooskaygu ku jiraan. Markii nolosha niyad jabka ahi ay ii guulisay gabadhaan adiga ahayn, albamkii sawiradayda ayaan soo jiidayaa. Waxaan u furayaa si taxaddar leh sidii qof furaya miino qaraxa. Waxaan rogayaa sawirada bogga kale. Waxaan kugu xaqiijinayaa inaan kugu arki doono dhammaan sawirada. Waxaad noqon doontaa gabadh xiran dharka cad, misna ku fadhida jilbahayga ee lugba dul saaraysa lugta kale. Waxaad noqon doontaa gabadh ii cabtay sharaabka iyo gabadh si tartiiba u jaraysa keega. Waxaan maqli doonaa codkaaga ka soo baxaya dhammaan sawirada, kaasoo si kalsooni iyo taxaddar ku jirta ii leh, anigoo adiga ayaan ku leeyahay, adiguna adiga ayaad leedahay. Xiisuhu waxa uu igu qasbaa waqtigan inaan jeclaan lahaa inaan noqon lahaa quraanjo oo si dhuumaalaysi ah ugu soo gasha guriga habeenkii iyadoo aan cidina dareemin, si xirfadaysan ugu dhumata cadarka sida baasaaska oo kale, oo si kalgacal ah oo indhadheeraynaysa wejigaaga daalan ee hurda, si tartiib ahna kor ugu fuulaysa dhinacyada iyada oo aan la dareemin misna laabta ku gashata sida hooyo wiilkeedii oo lumay la kulantay muddo dheer kadib. Armaajada dharkaagana ka dhigto hoygeeda dhabta ah, iyadoo geesahana kugu tilmaamaysa quraanjooyin kale, si qab iyo kibir ku jiro ugu leedahay, tani waa gacalisadaydii. Kaliya marka ay dareento in cid kale ay ku guursanaysana ay nafteeda hoos u dhigto cagahaaga si ay u dhimato ka hor intaanay arkin qof kale oo ku guursanaya. Maalmo yar ka hor, waxaan tiigsaday sanduuq alwaaxda ah ee aan ku kaysado alaabtaada. Waxaan hagaajiyey qufulkii sirta ahaa oo ereyga sirta ahi uu weli yahay shantaadii xaraf ee magacaaga. Waxaan ka soo qaatay gudaha sanduuqa warqad aad horay igu soo qortay gacantaada. Adiga ayaa ileh, adiguna aniga ayaa ku leh. Weligay waan ku jeclaan doonaa. Indhahayga ayaan xidhay oo waxaan bilaabay inaan xasuusto gariirka gacantaada markii aad ii dhiibaysay warqaddaasi. Markii ay xasuustii i xanuujisay, waxaan furay indhahayga oo madaxa ayaan u dhaqaajiyey sidii qof doonaya inuu ka fogeeyo xasuusta. Waxaan warqaddii ku celiyey halkeedii, welibana si taxaddar leh, sidii hooyo dhigaysa ilmaheeda oo hurdo xorkiisa. Waxaan xidhay sanduuqii alwaaxda ahaa. Si fiican ayaan ugu xidhay qufulkii, welibana si taxaddar leh
Kahor inta aanan ku kicin kursiga aan ku fadhiyey, waxaan maqlay codkaaga oo ka soo baxaya gudaha sanduuqa, wuxuuna ahaa mid diiran. Wuxuuna ahaa mid diiran sida koob caano ah oo markaa la soo lisay. Waxaana igu lahaa, aniga ayaa adiga ku leh, adigana aniga ileedahay, weligiina waan ku jeclaan doonaa. Waan fiicnahay. Waa been aan caadaystay inaan idhaahdo marka dadku ay weydiiyaan xaaladayda. Adiga kaliya ayay ii ahayd qofkii aan u sheegi jiray wax kasta oo qalbiga ku jira iyadoo aanan lahayn been iyo jirid. Kaalay aan kuu sheego inaanan fiicnayn. Haa, ma fiicni. Waayo maqnaanshiyahaagu wuu i burburinayaa, i xanuujinayaa, lafahaygana wuu ruugayaa. Ma fiicni. Aniguna adigaan kuu bukaa, waan ku doonayaa, waan kuu baahanahay. Ii sheeg jannadaydii maxay igu tuureen. Kaliya kuumaan haysin, laakiin dhammaan waxyahayguba way ku xiiseen. Xalay waxaan ku arkay dhoolla caddayntaada xubno ku taallay buugayga. Waxa ahayd mid qurux badan, sida daruurta ka dul sabanaysa samada magaalo ku taalla. Magaalo kulul xilli xagaaga ah. Markii aan bunkii dhammeeyey ayaan ninkii adeegaha ii ahaa ii keenay tiish si aan ugu tirtirto xumbada ku dhagan garhkayga, laakiin maanan samaynin. Sideen ugu tirtiraa waxaan ka dhex arkay carruurtii jidka maraysay. Waxay farahooda iskugu tilmaamayeen aniga iyaga oo qoslaya. Umay qoslayn muuqaalka shaarabahayga oo xumbadu ku taallo ahaa wax lagu qoslo. Hase ahaatee waxay xumbadu ka dhex arkayeen quruxda dhoolla caddayntaada sidaada oo kale. Caddayntaada sidayda oo kale. Waxaa jira hal qof oo aan dhab ahaan u jeclaano. Wax kasta oo ka dambeeya waa wax la iloobi karo. Mar kasta oo daadu nagu sii korodho, waxaan ka shalaynaa daqiiqad kasta oo aan ku heli karnay fursad aan kelmadda jacayl ugu sheegano kuwa maqan balse aynaan u sheegin. Kaalay aanu malaawaalno. Ka waran haddii cimrigaagu gaaro 80 sano oo tareenka jiro ninkaaga, anigana nibirigu cuno xaaskayga, oo labadeenu noqono laba waayeel oo aan guursanin. Kadibna go'aankaaga aad adigu u yeelatid oo aan kugu imaado aniga oo kuu soo bandhigaya guur, maiga aqbali lahayd inaan noqdo ninkaaga. Waxaan sawiranayaa adiga oo wejigaagu u leexinaya dhinac kale si aad iga qarisid casaanka wejigaaga. Kadibna aad madaxaaga iga muujinayso inaad ogoshahay. Ka waran haddii nasiibku inoo qoro guur dambe, xaggee aynu ku qaadan lahayn bisha malabka? Magaalooyinka ayaad jeclaan lahayd inaad u safarto. Waxaan ku dhaartay inaan ku odhan doono erayo aanay dhagahaagu aadamuhu weligood maqlin. Waxaynu u safri doonaa meel ka fog dayaxa. Waxaynu ku dabaalan doonaa biyaha webiga. Waxaynu lugaheena ku fidin doonaa ciidda xeebta sida laba masas oo jacayl dartiis isku caajinaya. Waxaan ku socon doonaa waddooyinka habeenada guga ah. Mid kasta waxa uu sitaa dallada roobka celisa. Waxaynu socon doonaa inaga oo gacmo haysana, maraynana jidadka ceeryaamadu buuxisay. Kuna soconnaa tallaabooyin gaabis ah, inagoo qalbiyadeenu ka rajaynayna in safarku sii dheeraado ama inaannu marnaba gaarin meeshii aynu u soconnay. Waxaannu aad uga baqaynaa inaan jidka ka tallaabno si wada jir ah oo markaana dhinaca kala gaarno. Waxaan ku qabsadaa dhexda si aan kaaga caawiyo inaad ka gudubto laamida. Markaas ayaan sii dhex qaadnaa geedaha liinta marka aragnano kuwa jacaylka isku haya oo dhunkashada iyo sirta isdhaafsanaya. Waxaan u dhul caddaynaynaa si xishood leh, kadibna safarka ayaan sii wadanaynaa. Marka uu roobku nagu da'o, ma furanno dalladaha, laakiin waxaan u sadaqaynaynaa kuwa saboolka ah. Waxaan u ogolaanaa dhibcaha roobku inayna dhaqaan. Waxaan u ogolaanaa dhibcaha roobku inayna dhaqdaan ilaa ay ka baabi'iyaan boodhka gabowga ee jirkayga. Markaas waxaan noqonnaa dhalinyaro sidii waqtiyadii hore. Markaan ahay 80 jir, ma awoodi doono inaan ku soo jiido sidii aad sida fudud u samayn jirtay markii aan dhalinyarada ahayn. Ma ku soo jiidan doonaa garhkayga ciroobay markaas
iyo dhabarkayga hore u janjeersaday akhris iyo qoraal dartiis. Ma ku soo jiidan doonaa kala goysyadaydu kuwaasoo soo saara codad u eg sidii albaab aan la furi doonin muddo? Miyaadan ka cabsan doonin urta dhimashada ee ku dheggan jirkayga iyo bishimahayga qallalan ee dhadhanka kafeega iyo sigaarka leh, iyo afkayga oo markaas u muuqan doona sida isfanjo quruntay, iyo laalaabka hareeraha indhahayga ee godadka qotada dheeri ka samaysmeen? Ma ku soo jiidan doonaa jirkaygan dhammaaday iyo maqaarkaygan u eg maqaarka diin gaboobay? Miyay ku dhibi lahayd cabashadaydu iyo codka usha aan ku tiirsanahay iyo hoos codka ku dheggan codkayga, iyo dhegta aan sida fiican wax uga maqlaynin, iyo nabarada fudud ee wejigayga, iyo xanaaqayga markaan raadinayo ilka beenaadka aan iloobay ee aan meel dhigtay? Waxaan sawiranayaa adiga oo 80 jir ah oo aad u qurux badan oo waqtigu ka madax bannaan, sida adiga oo heshiis la galay waqtiga, waqtiguna kugu ag socdo isagoo aan ku taaban. Waxaan sawiranayaa adiga oo ah gabadh dhalinyaro ah oo 80 jir ah, weli ay ku jiraan raadadkii dhallinyarnimo, gabar 80 jir ah oo qurux badan leh, indho bisad guri joogta ah, iyo sanka toosan sida xaqiiqda ah, iyo jir loogu talagalay inuu noqdo saacad ciid ah. Gabar 80 jir ah oo hore u soo guursatay, kadibna ninkeedii uu tareen ku dhuftay oo ku dhintay, markaasna jacaylkeedii soo guursatay, kadibna markii nibirigii wanaagsanaa uu cunay xaaskiisa si uu ogaado inay weli si la mid ah waagii hore u jeceshahay, si uu ogaado kadibna kala maqnaanshihii in qalbigeedu aanu qof kale hanan, si uu ogaado inay marnaba maalin aysan rajada lumin kana caajisin sugitaankiisa. Jacaylku waa heshiiska aan ku sharaxno dhammaan waxa aan haysanno, innagoo si wanaagsan u og inuu yahay heshiis khasaare leh. Xusuustu waa jaakad culus oo la xidho jilaalka, kaasoo aan xiranno innagoo aan rabin, innagoo cagaqaawani ku soconayna xilliga xagaaga ah, cadceeduna aad u kulushahay. Aad ayaan kugu xiisay xilligan, iyo codkaagii u eg quruxda heesta calanka, iyo carafkaagii aan weligiis sababkayga gelin, iyo wejigaaga quruxda badan ee u eg sooyokooyinkii ay hooyaday sheegi jirtay waqtiyadii hore ee la soo dhaafay. Qalbi kasta waxaa ku jira gabar yar oo qalqaaliyada magaceedana la yiraahdo xasuus, oo habeenkii soo kacdo waxay ku kicisaa fasahaad, waxay kala fidhisaa waraaqihii samirka oo ay waxyaalaha ku burburisaa si naxariista raac, waxay ku qortaa gidaarada qalbiga ballan kasta oo jacayl ah oo daa'im ah, oo aan isla gaarnay maalin maalmaha ka mid ah, kuwaasoo qadarku nagu khasbay inaan ka baxno. Markii aan ku nidhaahno gabar yar ee qalqaaliyada seexo, inta ay noo soo jeedsato ayay cabbaar ina soo egtaa, kadibna carabkeeda inta ay soo saarto ayay nagu jeesjeestaa, markaas ayay dib ugu noqotaa iyada oo aan dan ka lahayn qorista ballamaha jacaylka daa'imka ah ee ku yaalla gidaarada qalbiga, kuwaasoo aan maalin wada galnay, kadibna qadarku nagu khasbay inaan ka baxno. Xilligii xasuusta uduggu wuxuu ku khatar badnaa dilaa la soo karaystay oo naga daba socda daaqadda daashad leh. Saqbarka ayaan soo kacaa aniga oo cabsanaya, sababtoo ah codkaagu wuxuu ku soo qulqulaa albaabka hoostiisa, kadibna daaqadda, kadibna godadka xasuusta iyo barkinta hoosteeda. Codkaas oo isoo kiciya misna igu yidhaa hurdada ka kac, waan kuu xiise. Sida aan kuugu xiisay waxaan dareemay in geneetigu xasuustu hido, sidahaygu xasuusto uu dhaxal ahaan ugu gudbo doono carruurtayda, oo ay ku kori doonaan iyaga oo xiiseynaya haweeney aanay garanaynin oo aanay weligood arkin noloshooda. Maalin kasta oo aad maqan tahay, alaabtaadu way igu qayliyaan. Markaan galo qolkayga sida hooyo curadkeeda ku qaylinaysa, kadibna marka uu gurigu soo galay oo uu sheegay in walaashiisii yarayd ay waddada dhexdeeda kaga luntay oo uu soo waayey. Adigu waxaad tahay sidii kalluun ilaa dhammaadka nolosheena sii ahaan doona mid aan la hilmaami karin, oo xasuusaha ku dhex dabaalata
misna ah mid aan dhimanayn oon la xilaabi karin. Xusuustu waa sidii shaydaamad aan la iska naari karin, waa lacnad sii joogta oo na wareerin doonta xitaa markaan qabriga ku jirno. Maxaan marka aan muraayadda ishortaago si aan u feedho gadaashayda kugu arkaa adigoo sariirta fadhiya, adigoo dhoola caddaynaya misena ila dhacsan sidii inaad igu dhahayso alla qurux badnida. Markaan isnaado eeg ee aan soo jeedsanana aan ku waayaa. Maxaa marka aan seexdo aan u dareemaa inaad ku ciyaarayso garhkayga sida aad igu ciyaarayso dhogorta bisad guri joogta oo kale. Markaan indhaha kala furana aan ku waayaa. Maxaa kugu arkaa dhalada cadarkayga, saacadayda gacanta iyo muraayadda hore ee gaariga. Maxaan kugu arkaa waddada dhinaceeda adigoo ii gacan haadinaya si aan kugu istaago, markaan istaagana aad u cararto. Waxaan bilaabay habeen walba dhammaan waraaqahayga inaan ku qoro magacaaga iyo ereyga waan ku jeclahay. Mar kasta laga soo bilaabo daqiiqadaan ogaaday in ruuxaantaadu ay imaanayso si ay u basaasaan qoraaladeeda kadib markaan seexdo. Waxaan ka dhigi doonaa dunida oo dhan inay maqlaan magacaaga mar kasta oo dabayshu kacdo, si dunida oo dhan ay u ogaato inaan ku jeclo oo weligay ku jeclaan doono, iyo inaan waxba aysan joojin doonin jacaylka aan kuu qabo xitaa haddii aan noqdo boodhka keliya. Waxaa jira marar badan oo aan soo xasuusto markaanu ku wada hadalnay telefoonka oo aad i weydiisay ka waran haddii inta aan go'aan gaadho kaa tago. Waxaan ku yidhi aniga oo isla han weyn, qofkii go'aansadaa inuu iga tago kama xumaado bixitaankiisa, laakiin hadda waxa aad ugu qoomeynayaa jawaabtaydaas. Haddii maalmahaas dib noogu soo noqon lahaa oo aad i weydiin lahayd mar kale ka waran haddii inta aan go'aan gaadho aan kaa tago, waxaan ku oran lahaa ma bannaana, maxaa yeelay waxaan ahay nin mu'min ah, islaamka gudihiisana kuma bannaano qof mu'min ah si kas ah loo dilo. Anigu waxaan isku dayay inaan ku ilaabo. Waxaan qorsheeyay inaan u safro meel fog, magaalo jidadkeedu adiga ay kugu dhammaanayaan, balse aniga oo garoonka diyaaradaha jooga ayaan ogaaday inaad ku dhuumatay shantadayda, jeebadaha surwaalkayga iyo jaakadayda. Codkaaguna wuxuu ahaa dhawaaqii ugu dambeeyey, kaasoo rakaabka ka codsaday inay tagaan albaabka diyaaradda. Markii albaabka la soo gaadhayna adiga ayay ahayd oo cid kale mayna ahayn. Qofka ii jaray tigidhka safarka oo markaana diyaaradda saarnaa adiga ayaad ahayd duuliyaha iyo shaqaalaha martida, adiga oo keliya oo cid kale maysan ahayn. Cidda i kaxaysay kursigayga, codkaaguna waxa uu ahaa codka keliya ee rakaabka ka daba odhanaysay ducooyinka safarkayga dhexdiisa. Adiga ayay ahayd joornaalkii aan halkaas ka akhrinayay iyo sheekadii aan akhriyayba, iyo haweeneydii ag fadhiday iyo suunka badbaadada ee aan laabta ku xirtay, iyo sawirkayga oo ka muuqday muraayadda daaqadda, iyo daruurtii diyaaraddu ku dul socotay, iyo buuggii aan u cabbayay si tartiib tartiib ah. Markaan gaadhay dalkii ilowshaha, waan isdhiibay. Waxaan bilaabay inaan goosto tigidhyo kale. Waxa aad ahayd shaqaalihii safarka ee sharci gelinayay gelitaankayga, oo waxa ahayd mid ka mid ah bogagga baasaboorkayga cagaarnaa. Waxaad ahayd darawaladii tagsiga ee quruxda badnayd iyo shaqaalihii hudheelka ee dhammaan martida u dhoola caddaynaysay. Waxaad ahayd barkintaydii, bustahaygii iyo daaqaddii roobku mar walba uu ku soo hoomanayay dalka ilowshaha gudihiisa. Ugu dambayntii waan isdhiibay oo waan aqbalay joogitaankaaga xooggan. Waxaan bilaabay inaan dalbado qadada 2 qof
oon goosto 2 tigidh oo shaneemo ah oo aan si taxaddar leh u xusho 2 kursi oo ka dambeeya safafka dambe, si aan isku dhaafsanno dhunkashada innagoo ka fogaanayna indhaha dadka faraha badan. Markaana keligay lugaynayay jidadka dalkii ilowshaha, indhahaagu waxay igu eegayeen si feejigan, dibnahaaguna waa ay dhaqaaqayeen iyagoo aan lahayn cod, sida inay akhrinayaan sixir ama duco iyagoo leh, anigu adiga ayaan ku leeyahay, adiguna anigaad i leedahay. Weligay waan ku jeclaan doonaa sida ay doonaan ha u arkaane. Markaan keligay lugaynayay jidadda dalkii ilowshaha, ugu dambayntii waan ogaaday in xitaa haddii aan ka fogaado inay jirin meel loo baxsado dhankaaga mooye. Maxaa yeelay waxaad tahay gabar i qabsatay oo qabsatay taako kasta oo iga mid ah. Waxaad weligaa igu sii jiri doontaa oo aad i raaci doontaa meel kasta oo aan tago weligayba. Kaalay igu qari indhahaas oo si fiican albaabada ii soo xidh, hana ii oggolaan inaan maqnaado xitaa haddaan dalbado anigu. Maalin maalmaha ka mid a waqtiyadii hore iyo waqtiyadii la soo dhaafay kadib, markii Ilaahay dhulka ku abuuray 3 maalmood, dhammaan ashyaadu waxay qabsadeen xaflad. Waxaan ka soo qayb galay qof walba isagoo ku labisan dhar isku eg. Mid ka mid ah geesaha godka lagu qabtay xafladda waxaa taagnaa mid ka mid a dadka soo xaadiray oo sigaarka qaaliga ah cabbaya, misna xidhan maskaaro ishu qabanayso, laga sameeyey sayd iyo ubaxyo iyo qaar ka mid ah caleemaha ubaxyada, oo fooda hore waxaa ku yaallay 2 xaraf jacayl. Waxyaabahan oo dhan ayaa hareerihiisa ku soo ururay, waxayna weydiisteen ninka maskarada haystaa inuu iska soo saaro maskarada. Markii uu sameeyeyna waxay ogaadeen inuu yahay boqorkii sabootista iyo kala tagga. Kaalay aan malawaalno, haddii wakhtigu fursad keliya ii siin lahaa oo dib ii celin lahaa wax yar intaan kula kulmin, oo aan heli lahaa go'aanka inaan ku sii nagaado sida iminka aan ku sugnahay, misna kula kulmo ku jeclaado kadibna aan la kulmo kala taggan, ama inaan ka baaqsado dhibtan si aan uga badbaadiyo naftayda iyo dhammaan xanuunadan oo dhan. Waxaad filanaysaa inaan dooran lahaa haddii jacaylku go'aan noqon lahaa, haddii wakhtigu dib u celin lahaa wax yar, waxaan dooran lahaa jacaylkaaga anigoo ka labalabaynaynin. Maxaa yeelay jacaylkaaga ayaa iga dhigay bini'aadam. Jacaylkaagu wuxuu ii sameeyey baalal, wuxuuna iga dhigay inaan dul heehaabo cirka. Shalay waxaan dib u akhrinayay dhammaan fariimahaagii, erayadaaduna weli way ku qoran yihiin, kuwaas oo markhaati ka ah inaad mar joogtay. Maxaan ku sameeyaa warqaddan oo dhan? Waraaqahaagu way ooyaan oo way diidaan qaanadaha kabadhka, waxay diidaan iftiinka, way diidaan inaan taabto, ma doonayaan inaan akhriyo, sida inay dhammaan waxyaabaha ku qoray ay noqdeen sir. Waxay ila dhaqmeen sidii qof shisheeye oo kale. Haddii aan kula kulmi lahayn meel si kedis ah oo aad i dhaafto adigoo aan i ogeyn, qalbigaaga i jecel ayaa ka soo boodi doona, waxaana u socon doonaa sidii digaagad yar oo ka baxsatay meeshay ay ku xidhnayd, wuxuuna igu qabsan doonaa si xoog leh hortayda dadka oo arkaya. Markaad ku amarto inuu kuu soo laabto, wuu ka dhag adeegi doonaa. Markaad ku cadhootana, wuxuu ku odhan doonaa kaama cabsanayo. Markaad u hanjabto inaad tegi doonto, wuxuu kugu tilmaami doonaa gacantiisa si aad u tagto. Markaas ayuu farta kaa qaban doonaa, wuxuu ku geyn doonaa meel gooni ah, wuxuu kuu dhukan doonaa bishimahaaga, wuxuuna si tartiib ah kugu odhan doonaa dhegta, anigu adiga ayaan ku leeyahay, adna adiga ayaa ileh. Ninkaaga soo socda waa qofkii ugu horreeyay ee aan necbahay ka hor inta aanan kula kulmin. Waa qofkii ugu horreeyay ee qalbigayga ka rajaynaya inuu dhinto. Qofkii ugu horreeyay ee aan dareemayo inuu awoodo inuu i burburin karo gacmihiisa, sida inaan ahay
cayayaan uu ku qabtay gurigiisa, isagoo isku dayaya inuu xado hadhaaga cuntadayda. Sidee bay ugu suurta gashay qof qalaad oo aan weligiis ku arag, qof aan sinjiyadiisa ku qoyn ilmada baryada iyo ducada uu Alle adiga ku weydiisanayo inuu kaa qaato adiga. Kaliya bulshooyinka nasiibka darrada ah ayaa qaraabadu u doori karaan gabadh ninkeeda sida ay ugu doorato waxyaalaha kale. Wax kasta waa qasab marka laga reebo jacaylka. Jacaylka dhexdiisa innagoo keliya ayaa go'aansana, innagoo keliya ayaana doorana. Ruuxaygu wuu kula joogi doonaa iyagoo aan ogolayn, xitaa adigoo aan doonayn. Haddii loo baahdo, waxaan ku duuli doonaa baalal aan la arki karin madaxaaga kor mari doona. Waxaan kaa ilaalin doonaa wax kasta oo shar ah. Waan ku dhunkan doonaa dhabanada. Waxaan gacmahaaga ku masixi doonaa dhibcaha dhididkayga wejigayga. Waxaan kaaga warrami doonaa sheekooyin ka hor intaadan seexan, oo waxaad sii joogsan doontaa albaabka furan aniga oo ku ilaalinaya. Markaad hurdada ka toosto, cabsi kaaga timaada riyo xun, si degdeg ah ayaan kuu soo ordi doonaa. Waxaan kugu taageeri doonaa gacmahayga. Waxaan kugu deeqi doonaa kalsooni aniga oo leh hawlwelin, anigu ayaa kula jooga halkan. Waxaynu iska dhigaynaa inaan nahay kuwo nolosha ka qanacsan. Waxaa jira waxyaabo na dhibaya oo nolosheena xumaynaya. Waxaana iska dhigaynaa inaynu arrimuhu saxan yihiin marka laga reebo inaanan rabin inaan dadka ugu muuqanno kuwo u baahan naxariis. Maxaa yeelay aragtiyaha naxariistu waxay dhaawacaan jirka. Aniguna waxaan ahay nin sagootiska waxyeello gaadhsiiyey, oo ay nasiib xumo daalisay, oo aanan wadin inuu xamilo xanuun kale oo badan. Kala taggu waa qof xun. Wuxuu nagu maaweeliyaa inuu yahay saaxiibkeenna ugu dhow. Wuxuu nagu maaweeliyaa inuu weligiis nala joogi doono. Wuxuu nagu maaweeliyaa inaan fiicnaan doono haddii aynu dhegaysanno talooyinkiisa. Wuxuu nagu maaweeliyaa inuu yahay waddada keliya ee badbaadada. Waxa uu nagu dhaartaa inuu doonayo danteenna iyo dhammaan kuwa raacay inaan hallaan iyo dhammaan kuwa raacay inay helaan farxad. Laakiin markaan ku qanacno oo aan raacno, waxaan ogaanaa inaan dhibanayaal u noqonnay qof khiyaano badan, kaasi oo inaga xaday maalmihii ugu qurux badnaa ee nolosheena, kadibna inaga tegay sidii jaakad duug ah oo weligeed ku dhajisnayn doonta xasuusteenna. Shakigu waa caddayn ina tusaya inaynaan nafeena ugu kalsoonayn. Waa cabsida joogtada ee ay nagu sameeyaan sidaan uga samaynay iyagoo maalin ama maalin kale. Qofka qalbigiisa ku haya jacayl daacada wax ma khiyaamo, xitaa haddii inuu wax uu khiyaamayo ay tahay mid la hubo. Qofka qalbigiisa ku sida jacayl been ah wuu khiyaamayn doonaa, xitaa haddii jidhka khiyaanadu uu yahay mid aan macquul ahayn. Markaad maqan tahay, waan ogaaday in qosolku mar walba uusan ahayn caddayn farxad. Maya, laakiin inta badan waxay u noqon karaan calaamado murugo. Marka qalbigu ka buuxsamo walwal, qosolku wuxuu noqdaa dariiqa uu qofka isku furfuro ama uu ku nafiso si uusan u dhaawicin laab qof kale. Jacaylku ma xadido xorriyadaha. Jacaylku wuxuu bixiyaa xorriyad. Ninka ku xakameeya haweeney magaca jacayl waa nin aan jeclayn cid aan naftiisa ahayn. Marka haweeneydu ka baxdo qalbiga nin jecel, qalbigiisu si dhaqsi ah ayuu u gaboobaa. Wax kastoo agtiisa ka dhacana way dhibayaan. Xitaa dhibcaha biyaha ee ka soo dhacaya tuubo furan way dhibayaan. Codka saacadda gidaarka ku taalla way dhibaysaa. Codka caleemaha geedka ee shanqaraya way dhibayaan. Codka matoorka diyaaradaha duulaya 20,000 tallaabo dushiisa way dhibaysaa. Codka raadiyaha wuu dhibayaa. Codka garaaca wadnihiisu waa uu dhibayaa. Codka qulqulka dhiigga iyo xididadiisu waa uu dhibayaa. Marka haweeney ka baxdo qalbiga nin jecel, wuxuu noqonayaa mid keliya. Xitaa haddii dadka oo dhammi hortiisa joogaan, wax kasta way ku adkaanayaan. Xitaa neefsashadu waxay ku noqotay hawl culus oo aan la qaadan karin. Fariin kasta
oo ku socota qof kasta oo ka fikiraya guurkaaga, waxaa laga yaabaa inaad u ekaato qof qurux badan, nadiif ah oo ifaya, laakiin ma ahan heerka aad ku xidhan karto iyada. Aniga keliya ayaa u qalma iyada. Aniguna waxaan ku noolahay dunida keliya si aan u caabudo Alleh, kadibna u jeclaado iyada. Kuma dheeraan doono. Waan ogahay in ragga guur doonka ahi aysan inta badan haysan waqti ku filan inay akhriyaan fariimahan dadka qalaad. Laakiin anigu qariib ma ihi. Anigu waxaan ahay ninka qalbigeeda ku jira. Si kasta ha ahaatee, waxba ma ahan inaan iska ilowno khilaafaadkeenna oo aan u qodayno maalin kale si aan u soo afjirno nacaybka. Iyo kalow inaan kula hadlo, waxaan rabaa inaan kuu sheego in duruufaha murugada ah ay igu khasbeen inaan qofka aan jeclahay ku aamino gacantaada. Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad ogaato, laakiin waxaan dareemayaa inaan qasbanahay inaan kuu sheego wax adag xaaladda aan ku suganahay. Waxay la mid tahay inaan ka tago magaaladaadii aad boqoradda ka ahayd, kuna wareejiso qof qalaad oo aan ku aamino karin inuu maamulo xero lo' ah. Laakiin ugu yaraan ilaali oo daryeel iyada, oo u naxariiso xaalkeeda, u tur qalbi-jabkeeda, daciifnimadeeda u naxariiso, si aad farxad u geliso. Waa inaad iga tirtirto xasuusteeda. Inkastoo hawshani aysan macquul ahayn, haddana haddii aad u samirtid, waxaa laga yaabaa inaad awooddo inaad iga tirto maskaxdeeda. Xaqiiqatan, ma jiro qof jeclaan lahaa in lagu tirtiro xasuusteeda ee qofkii uu jeclaaday, laakiin waxa uu jeclaan lahaa markuu duruufuhu ku khasbaan kala tagooda, inuu helo meel xabaal ah oo ku jiro xasuusta qof uu jeclaaday. Laakiin maxaan sameeyaa? Jacaylkaygu wuxuu ka sarreeyaa isjeclaanta. Maxaan sameeyaa haddii aan isku arkayay aabbaheed tan iyo markii aan jeclaaday? Ugu dambayntii, haddii aad rabto in madaxaaga ay ku sii jiro jirkaagu, gacantaaduna ku dhagnaato garabkaaga, iyo carabkaaguna ku jiro afkaaga, ha dhiibin iyada. Waxaan kuu rajaynayaa geeri degdega. Waxaan booqdaa meeshii aan markii ugu horreysay kugu arkay. Waxaan istaagaa meeshii aan taagnaa markaan arkay indhahaaga oo wadnahaygu si xoog leh u garaacmay. Ma aanan kuu qoslin markaas, ma xasuusataa? Maxaas sababtoo ah inaan aqoon sida loo qoslo, ee waxaan ka cabsaday inaan afkayga furo, markaasna wadnahaygu kugu soo boodo isagoo u diyaar ah inuu kugu soo boodo. Marnaba ma aadan ahayn qof qalaad. Xitaa maalinkii ugu horreysay aan kula kulmay, waxaan dareemay inaan hore kuu aqaanay. Waxaan si fiican u garanayay labadaas indhood, sidii inaan jeclaaday waqti hore. Laga yaabaa waqtiyadii hore ee taariikhda, ama laga yaabaa waqtiyadii dhexe, ama laga yaabaa waqtiyadii mugdiga. Waxaa laga yaabaa inay ahayd xilliyadii khilaafadii Umayyadeed, ama waxaa laga yaabaa inay yihiin xilli mustaqbalka aan weli iman. Markii aan markii ugu horreysay ku eegay, waxaan dareemay in adduunka oo dhan uu ila heshiiyey si aan kula kulmo. Maxaa sabab u ah maalmaha jacaylku inagu dhaafaan si dhaqso ah? Maxaa sabab u ah maalmaha kala taggu inay dheeraadaan oo ay u muuqdaan inay weligood dhammaan doonin? Si kasta oo aan ogahay inaanad go'aan ku lahayn kala taggan, haddana markaan isu eego, kuma cafinayo. Ma jiro cudurdaar sharaxaya maqnaanshaha, xitaa haddii sababuhu cad yihiin. Laakiin waxaan iska dhigaynaa inaan aqbalno cudurdaarada keliya si aan u aamusno qalbiyadeenna, kuwaasoo weligood ilmayn doona. Sidii ilmo niyad jabsan oo ku dhigay daafiyada waalidkiis si uu u raaco ilaa ay ku yidhaahdaan si ay u musiyaan, haye, waana raaci doontaa. Kadib markii uu kabihiisa doontay ee uu soo noqday, wuxuu ogaaday in labadooda waalid ay ka tageen oo ay ka tageen isaga. Mar ayaad igu tidhi, ii sheeg waxaad jeceshahay oo aan sameeyo si aad ii jeclaato in ka badan intan. Markaas ayaan aamusay oo aan kuu jawaabin. Ma ahayn wax kale. Marka laga reebo inaan ahay nin bari ka soo jeeda, ma ahi nin jacaylka wax badan ka yaqaana. Haddii waqtigu dib ii celin lahaa, waxaan ku odhan lahaa ila joog. Taasi ayaan kugu filan si aan kugu jeclaado intaas in ka badan. Magaalada jacaylka
waa magaalo dhulkeeda laga oggolayn ilowshiyaha, midhaheeduna waa midhaha isdilka oo la cuno innagoo aan ka walwalin nolosha. Waa magaalada geerida laga jecel yahay, taasi oon si madax adayg ah ugu raadino khariidada qadarka ilaa aan ka gudubno darbiyadeenna oo aan aragno murugada dadkeeda. Waxay ogaanaa in magaalada jacaylku aysan deganayn dadka caqliga leh. Jacaylku waa maadda adag, qadarku wuxuu nagu qasbi doonaa maalin maalmaha ka mid ah in lagu daro jadwalka nolosha si aan u ogaanno inay tahay maaddo la keenay si aan qofna ugu guulaysan. Daryeelku waa shayga keliya ee damaanad qaadi kara sii socoshada jacaylka, laakiin isticmaalka xad-dhaafka ahi hal dhinac waxa ay qofka soo gaadhsiintaa dhaawacyo, taasina sababta u noqota in la waayo. Waxaa laga yaabaa in dayaca uu yahay cadowga ugu weyn ee jacaylka, laakiin mararka qaarkood waa in la adeegsadaa sidii naxdin koronto oo kale si uu jacaylku nolosha ugu soo noqdo marka wadnuhu si lama filaan ah u joogsado. Ii kaale aan kuu sheego waxaanan marnaba kuu dhiiran karin inaad qirto. Waan isku dayay dhowr jeer inaan ka baxsado jacaylkaaga oo aan kaa cararo, laakiin indhahaagu mar walba way xoog badnaayeen. Mar kastoo aan isku dayo inaan kaa baxsado, waxay xoog igu soo jiidi jireen si aan hoos ugu dhaco indhahaaga hortooda. Waxay ahayd sida qof la haysto oo qarqoomay, oo wax kasta uu awoodo sameeyey si uu u badbaado, laakiin ugu dambeyntii isdhiibay sababtoo ah wuxuu arkayay nibiriga oo ku soo dhowaanaya. Markii aad maqnayd, marnaba kuma waayin. Sideen u waayi karnaa kuwo aynu ku sidno qalbiyadeenna sidii sixir ama sidii lacnad ama sidii shay aan la awoodin in la ilaabo? Markii aan buuggan akhriyo, waxaan maqlayaa codkaaga oo igu dhex milmaya, misna i akhrinaya erayadan aniga. Markaan wax qoro, waxaan dareemaa inaad adiga iga dambaysid oo aad daawanaysid qoraalladeeda. Markaan maqlo sheeko qosol leh, waxaan maqlayaa qosolkaaga. Markaan maqlo halxidhaale, waxaan maqlayaa adigoo qiyaasaya jawaabta. Markaan dhegaysto abwaan, waxaan maqlayaa adigoo isku celcelinaya erayada ugu dambeeya ee gabaygiisa. Markaan maqlo xadiis suubanaheennii ah, waxaan maqlayaa adiga oo Alle dembi dhaaf weydiisanaya. Jimco kasta waxaan maqlaa adiga oo Suuratul Kahfi gudahayga ka dhex akhrinaya, sidii oo aan ugu kala fogaanay keliya inaad iigu dhex noolaato. Shalay walaalkay ayaa wiilkiisa yar weydiiyey, imise tiir buu islaamku leeyahay? Waxaan gudahayga ka maqlay codkaaga oo aad u hooseeya, adiga oo ii sheegaya 5. Wiilkii walaalkay ayaa isoo eegay qaab uu wax iigu sheegay oo kale, kadibna wuxuu u jeestay aabbihiis oo ku yidhi cod uu S uga beddelay xarafka Sh. 5. Markii uu wiilka walaalkay ka badbaaday ciqaabta aabbihiisa uu kula sugayay khaladaadkiisa, waxaan ku maqlay adiga oo u sacbinaya sidii adiga oo u hambalyeeyay badbaadadaasi. Waan dhoola caddeeyay aniga oo murugo dareemaya. Ugu dambeyntii waxaan rumaystay inay gabadhi ku jirto. Waxaan bilaabay inaan ku dadaalo xidhashada dharka ugu fiican markaan la jiro saaxiibaday, sababtoo ah waan ogahay inaad iga basaasi doonto gadaal. Darbi igu xeeran. Waxaan xasuustaa maalintaas markii gabar maraysay waddada, sidii masayrkaagu kugu qasbay inaad soo baxdo oo aad ii soo dhowaato sidii gabar aragtay ajaanib u soo dhowaanaysa reerka. Waxaan xasuustaa markaa sidaad wejigayga labaad gacmood ee aan la arki karin iigu jeedisay dhanka kale, adigoo sugaya inta gabadhu ka libdhayso horteeda, adigoo ku qaylinaysa cod cara leh, tag oo mar dambe halkana soo marin. Codkaaga aan la maqlin wuxuu sababay 2 ilin inay ku dhacaan dhabankayga ka hor intaanan kor u qaadin gacantayda si aan u masaxo. Gacantaada macaan ayaa iga masaxday, kadibna markii gabadhu leexatay oo qalbigaaga ku degay inay tagtay, waxaad ku laabatay meeshaadii gadaal darbigii janjeera si aad u dhammaysato hawsha basaasida.